habeennimo xilli ay goorsheegtu tahay 11 xilliga magaalada Burco ayaan u baxnay aniga iyo saaxiibaday deegaamo dhaca waqooyi bari magaalada Burco si aan u iftiimino saamaynta ay abaartu ku yeelatay deegaamada Samakaab garka Artala balli warfaa kumbura carro balli carraale karin iyo karin gargaro 8 booyadood oo biyaa oo aanu gaarsiinay kumay filaan oonta weyn ee jirta halka awgeed deegaamada ayaan ugu tagnay duruufo adag oo ay la wadaagaan guud ahaan gobolada ay abaartu ku dhufatay inkastoo ay la gaar yihiin gurmadka iyo kamaradaha oo ku yar iyo iyagoo dhaca meel leexsan oo aanay cagtu ku badnayn xaalka ayaa noqday xoolaha xiriyaha habeenkii ku soo xarooda in aanay aroornimada kaga bixin tiradii ay ku soo hoydeen jidadka waxa waran baktigooda inta waa bariisatana waxtar dhaqaale uguma fadhido dhaqatadooda ma yeedhaan harraadan gaajaysan iyo yeedhaan aan wax badan dhaamin ayaa is hor fadhiya waxayna sugayaan roob daa oo fogaaday ama kaalmooyin magaalooyinka ka yimaada oo raagay in kooban oo ku hadlaysa magaca dhulka aanu booqannay ayaa warbixino kooban naga siiyey duruufaha ku xeeran iyo waayahooda way jiiftaa way aroori weydey way daaqbay weydey in xoolahaas way yuuraan geela iyo adhigu way soo yihiin marraba ma iman caafimaadka wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda xoolaha xanaanada midna marraba ma iman marka waxaan leenahay taa hore abaarta ahaydba waxa imika kaga sii kulba dadkii markii ay xoolihii caatada ahaa ay dul joogeen ay wax ka cuneen caatadii ay dubteen way ku xanuunsadeen dadka eeriyadoo dhan minkoo wada xanuunsanaya ol wax kiniinana ma haystaan wax dawaana ma haystaan wax dhaqaatiran ma iman taas baan imkaan ku kordhinaa waxaan leenahay caafimaadku soo weyn si degdeg noogu yimaado tan kale biyaha dee waxaa keentay waa booyadda dee maanta afka lagu dhufanaya berriba waa ka qatan yihiin dee bacaa la yidhi meelahan ka qota garhka ka qota iyo halkan balay warfaayo meelahan ka qota oo bacihii dad baa la dul keeno oo dee baxoog maale biyaa la idinku shubaya iminka 15 casho biyo laba keeninba halkii bay ku dambaskaro kuwa si baqtiyeen baddi inta islaahayn biyaa la idin keenayaaba waa qaar iska dhaawacan lahaay oo dhulkooda qaban lahaaba ayaa si biyo baa la idin keenaya dabadna meeshu bay ku baqtiyeenba oo iska dul joogaanba baahi dad iyo baahi dunyaba waa qabnaa abaar baanu qabnaa waxaanu qabnaa haddii allaba idinkeeda leeyahay waxaanu qabnaa cayd gaajo haraad intaba waa qabnaa deena gacan qabta ilaahay idinkaanu idin eegaynaa ariyaha qaar baa maanta ay u toban tahay caatada halkaa toban yani haraad biyo la'aan meel lagu kici waayey aad iyo aad baanu haraadkaasu noo taabtay adduunyada wixii socolayay iyo wixii aan socolaynba aad bay u jilicsan yihiin dadkuna waa la mid dee waxaanu leenahay degdeg biyaha maantana booyadaas hadda ariyaha badh bay ka go'aasaa 100 adhaysa soo daba toban waxaanu dee sugnaa hadiya jeeraale guddida abaaraha kormeerayaasha wariyayaasha ayaanu sugnaa wariyii horreeyey maantuu loo yimi nasiib wanaag in badanna wuu naga maqnaa xooluhu way bixeen waxa joogaana naf ma laha aad iyo aad iyo aad bay u bixeen waxa joogaana 3 meelood marka laga dhigo 2 meelood baa baxay meesha joogtaana rajo ma laha haddii aan guddoomiyaha ama odayaasha aanu nahay kumur carro ama se deegaanka markaanu ka warramayno waxaanu doonaynaa wixii naloo heli karo ee dawladdu noo heli karto ee hay'aduhu noo heli karaan inay si degdeg ah oo taakula ah ay wax noo soo gaarsiiyaan roob yarba berdhowdaan naf lahayn baa ka daado dabadeedna dhowr jaal lagaga yimi culays gaara baa meesha laga gumir carra isugu yimi oo ummadda maanta ku qoys waa ka badan yahay reerka dul yaalla ee abaarta ku qabsata biyana looma yaqaano barageed oo ku wada marnaan haddii xumayadeedinba waa aragtaan horta marka hore haraad caawa dadku u baktiya waa haraad iyo haddii iyo gaajo labadaasi waa isdul saaray laakiin xogtaanu ka hayna abaarta waa ka ta kale waxa u dheer oo gaaro xasaasiyada kamid aanu ka bixinayno gumir carro waa magaalo yar ka leexsan dhulka laamiyada waa wadan yar leexsan dawladdu waa timaada laakiin hay'adaha iyo dawladdu waxay maraan dhulka bannaan oo aad u maraan oo toobsada wadooyinkay maraan meesha aad looma eego marka waxa u sii dheer cudurraa ka dhacda xoolaha haya dhakhtar caafimaad oo noo baadha ma haysano oo mid dadka eega ma haysano labadii dhaqaatiireed midna dadka midna duunyada ma yimaadaan halkaana adirxumaay wax godoba aanu halkaana annaga noo sii dheero caalamka nooga gaara wixii wardaad ka sokeeya
ومال اللي يحصلوا هدي بحواني ولا وضد توصلهم بو هدي بحواني عد كسا هدي بحواني لقى يا بيني توبسطو marka waxaan leenahay bal aad ha loo eego hadii deegaanka saraar ee hadii bixinkayo hadii laga ilaa inta halkaas ka sokaysa hadii ka sokaysa hadii ceel dheere halkaan hadii bixinkayo ka sokaysa hadii bixin waradaad ka sokaysa ilaa dhanaano intaas waa wax weyn waa qofkii kasta wuxuu yaada war ama waa dhul fog ama wax weyn wada leexsan waxaan leenahay marka bal dhulka aad ha loo ogaado booyadahan la keenayo anaga hadii bixin waxa nooga sii fiicnaan lahayd iyadoo hadii bixinkayo waxa lagu bixinayo biyaha lagu bixinayo iyadoo riig loogu keeno hadii inta saraar dhexdeeda looga keeno hadii qof waliba uu dabeetana markaas hadii booyadaha hadii tabarraacad hadii looga soo qaadan lahaa waxaa noo weeliyay horta xanuun baa noo weeliyay xoolaha aad iyo aad u fara badan oo istubul la yiraahdo sambab la yiraahdo dhiig furuq baa jira cabeeb baa jira cuduradaas noo weeliyay waxaanu leenahay horta markii hore waxaanu ka tirsanay degmada Caynaba ee laascadood hoos tagta degmada Caynaba wayna halaysay aad iyo aad bayna halaysay waan cambaaraynaya waxaan leeyahay haddaan leedahay tuulada gumbar carro la yiraahdo waxaan u digaroganaynaa iyadoo ay maanu maadsanahay burco baan u digaroganaynaa si fiican baan ugu digaroganaynaa anagoo qalbigayga iyo maankayga qabna baan u digaroganaynaa waxa weeyaan iyadaa wax nooga yimaadaan iyadoo wadaduna soo gashaa iyadaa wax ogaal wax og iyadaa haddana wax ka jiraan wax kastaba og waxaan leenahay haddaan tuulada gumbar carro waxaan u digaroganaynaa oo aan ula guuraynaa yacniga awrkayga u xiriirsanaynaa burco iyo wixii la halmaala tog dheer hanugu soo caynabay hanugu soo hagaagin ha noo imanin ha noogu hamayaamin warbixinna gama qaadid waxtar kaama helo wax alla waxaad noogu qiimo dhimantay ma jiraan codkumaad noo soo doonataa codkaad noo soo doontaa codkayagii maanta waxaanu la qabanay burco laga bilaabo maalinka aan taaganahay anagu waxa weeye maanta halkii ugu dambaysay baa dadku maraya xoolo dhaqatay isaga badan yihiin oo deedna neef lala soo baxo mid la qasho iyo mid la iibsado midna ma hayaan waxa yaryar marba meelaha laga soo cararaya un baa ay galaamaystaan xagga raashinkan oo lagu yaacayaa duruufaal ka jira markaan ka warramo baahiyaha ka jira waa fara badan yihiin biyalaan baa kamida waxa kamida dadkii iyo xoolihii wuxuu ka iibsado waayey iyo wuxuu ka qasho oo isagii isla liitaan wixii oo aan maran oo ninba oo iska dumayo habeenba dee 20 ha baqtido 30 ha baqtido 10 ha baqtido ay dee hadir magaalada agaarkeeda yaalin dadkiiyo wixiina ka dhaqaaqi kari waayay ilaa waa wuxuu masaariifta u haystay oo xoolihiisii oo iska dul taagan saacid loola tuman gaadiidu dhaamiyo iyo dee baabuur dhaamiyana ahayn biyanaanu hayno iska dul taagan oo leh mar dee alla baqtiyo ilaa waxaygo meelan marka horta wax waan cunaa dee ilaahay baa noo ballan qaaday quudkayaga ku ballan qaaday laakiin biyo iyo baad waa yar yihiin biyahana noogu daran duunyana kala soconayo naga dhamaatay dee waxaan u baahanahay ilaahay baan u baahanahay marka hore cabdimaaligow laakiin dee wixii islaama dee waxaan uga baahanahay wax biyo iyo baadba waa uga baahanahay adduunya way maratay geeli wuu dhammaaday adhigi wuu dhammaaday haye muuqata adhi ka soo dareeri waaye ka war dhirtaa muuqata oo geel ka soo dareeri waaye anaga geela yagii heedhee wax tobanaa ka sii qiiqaya maalin walba halkaasuu ku baqtiyaa shan baa looga tagaa awrtii baa fadhiistay geeli baa fadhiistay adhigii baa fadhiistay haddeer dadkii baa fadhfadhiya markaa ilaahay baana dii kicin kara ilaahay hadday cirka roob ka weyday oo dhulka caws ka weyday oo ceelka biyo ka weyday dee calaamo ilaahay unbaa isaga timi halka kan biyuhu naguma badna naguma fiicna aadna looguma keeno bishii baa 2 booyood ama 3 booyood marna lagu soo tuuraayo dee waa dhul badan oo ballaaran oo marka la qaybqaybiyaabay tuuladiiba booyood noqonaysa ummadda meeshan joogtaana dee 1000 qoys way ka badan tahay 1000 qoys marka imka taas oo loo soo dhex maro 1000 qoys way ka badan tahay buuriya banaanba waa taala qaar baa qorfo iska joogaan biyaba gaadhayno booyad galayno xoolana uga soo aruurino uga imano dee ku joogo oo alla yaa beegska iyo buraxangiyo iyo balliga caraale inta u dhexle 2000 oo qof ee reer qoys way ka badan yihiin waa ka badan yihiin annaga soortu haddii la helona waa haleelo haddii aan la helinna dee lamaba helin annagu waxaanu qabnaa hadday tahay dawlad iyo haddii ay tahay haayad yaa iyo haddii ay tahay guddida abaaraha mid waliba inaanu noogeyn
aanu saddexda qole maqan ku tirsanna waayo meeshaan 2,000 qof idinku sheegay dee booyadda loo keena boodi maxay biyeysaa haa ilaahay baa haddaba wax bixiya abaaraha aanu soo aragnay waxa weeye waan maqli jirnay abaaraha iyo sida ay dadku u dhibaataysan yihiin maanta waanu la soo noolaanay waanu la soo dareennay waanu la damqannay runtii markaanu aragnay dadka iyo xoolaha harraadan aad ayay noo damaqday insha allah waxaan rajaynaynaa dadyowgana daawanaya barnaamijkan aanu abaaraha ka soo duubnay deegaamo u dhow magaalada Burco in ay dadkan soo eegaan oo ay soo kaalmeeyaan walaalahoodan dhiban booyad aad shubtaan oo $250 in badan bay wax u taraysaa deegaamada qaar hal booyad baanu geynay kooxdii aan ka midka ahaa soo noqotay iyadoo ay baahidii weli taalo soona gudbiyo muuqaalka iyo baahida halkaa ka jirta dadka iyo xoolaha deegaamada aan u hooyanay ma sugi karaan intaa in ka badan baad iyo biyo baahi aan caadi ahayn ayay u qabaan haddii ay wax isbedeli waayaan waxii kara allah inaguma keenee dad harraad iyo gaajo u dhintay cabdimaalik muuse coldoon deegaamada waqooyi bari ee magaalada Burco هذا سوي استاجر